iyadoo abaaro xoogani ay muddooyinkii dambe ka jiraan gobolka Cayn iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasi oo la wadaago inta badan dalka Soomaaliya ayaa hay'adda inta badan ka shaqeysa daryeelka xoolaha kana hawlgasha wadamo badan oo ku yaala qaaradani Afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo VSF Germany waxa ay toddobaadkani ka sameysay magaalada Buuhoodle iyo gobolka Cayn hawlgallo isugu jira kormeero iyo biyadhaamin. Hay'adda ayaa maanta biyadhaamin horudhac ah waxa ay ka sameysay xaafado ka mid ah degmada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Maxamed Nuur Kaynaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda VSF Germany oo hadda ku sugan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa warbaahinta u sheegay hawlgallada ay ka wadaan gobolka Cayn inay yihiin kuwa la xiriira arrimaha samafalka dhinaca biyaha iyo sidoo kale daryeelka xoolaha. annaga oo ah hay'adda VSF Germany waxaan hadda mashruucan aan ku furnay gobolka Mudug iyo Nugaal meel ka mid ah ayaan bidaamis ka bilownay bilaha aan soo dhaafnay ilaa bishii February March ayaan wadnay bidaamiskaas oo hadda socda iyo isku jir xoolo daweyn hadda anoo ku hadlayo codka hay'adda VSF Germany ayaa waxaan codsan lahaa in ummadda hadda halka ku nool in lala soo gaaro gargaarka degdega ah hay'adaha caalamiga ah ay ka soo qayb galaan anagoo haddana ku howlan bidaamiskii insha Allah ta'ala aan rajayn doono in aan daweyn xoolaha dhanka xoolaha aan imaan doono. sarkaalkani ka tirsan hay'adda VSF Germany ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay warar inta badan la sheego kuwaasi oo ku aadan in gobolka Cayn aysan ka hawlgali karin hay'adaha maadaama lagu eedeeyo inuusan ammaankiisu sugnayn. waxa uu tilmaamay in ammaanka gobolku yahay mid wanaagsan isla markaasina isagoo uu ku marayay muddo 7 maalmood ah isagoo aan wadan cid ammaankiisa sugtaa. haddana anigoo ka socda hay'adda VSF Germany ayaa waxaan wareeg ku soo maray tuulooyin fara badan oo ka tirsan gobolkan saddexda degme ee gobolka uu ka tirsan yahay wareeg ku soo maray 2 maalmood oo soo dhaafnay intaasna waxaan la kulmay soo dhaweyn aad u baahan iyo bulshada iyo sida hadda laga filayo ay ka jirin طبعا sida hay'adaha ka qayb gala ama ka howlgala ee caalamiga ah ee Puntland oo dhan waxay aaminsan yihiin in gobolkan ay ka jiraan dagaalo ama colaado ama afduubyo fara badan ayaa media ugu jirto marka aniga naftayda wax security aan amaana wadanin waxaan wareeg ku soo maray tuulooyin fara badan ee ka tirsan gobolka hal maalin 3 maalin bay u qaadatay in aan soo wareega tuulooyin fara badan tuulooyinkaana waxaan ka soo arkay macluul fara badan iyo meel dhanka kale waxa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan dawladda Puntland kuwaasi oo iyagu ka qayb ahaa socdaalka hay'adda isla markaana ku weheliyay arrimaha kormeerka. wasiir ku-xigeenka waxbarashada Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Carab oo halkaasi taagnaa ayaa hadal kooban ka jeedshay. runtii waa u jeedaan oo waxa maanta halka ka socota waxa weeyaan biyadhaamin ay wado hay'adda VSF Germany oo runtii aad iyo aad hawlo u saaraysa gobolka Cayn waxa ogtiin biyadhaankan in uu saameeyay ka socda dhammaan goboleedka Puntland iyo goboladiisa sideeda halkaas waxa ogtiin hay'adaha muxuu hadii la ilmaay joogay goboleedka Puntland inay ka wada hawlgalayaan dawladdu horey bay uga hawlgashay haddana waa ku jirtaa hay'adahaasi waxay u qaybsanayeen hay'ado gobolada runtii ka biyadhaaminaya gobolkan wuxuu nasiib u helay hay'adda VSF Germany inay ka biyadhaamiso gobolku runtii waa gobol ka tirsan gobolada kale ee Puntland waxaana hay'adani runtii culays ka saartay sidii ay dadkan abaaraha ay hayaan runtii ay ugu biyadhaamin lahayd waxa hadda biyadhaankani ka socda gobolka Cayn dhammaan inta uu leeyahay degmooyinka iyo tuulooyinka ay xukumaan. waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay maayirka degmada Buuhoodle qaar ka mid ah dadkii deeqdani biyaha la gaarsiiyay iyo dad kale oo tiro badan waxayna dhammaantood u mahad celiyeen hay'adda VSF Germany oo noqotay hay'addii ugu horeysay oo biyadhaamin ka fulisa deegaanka gobolka Cayn waa marka laga hadlayo hay'adaha kale ee ka hawlgala deegaanada Puntland. Khadar Cawl Ismaaciil telefishinka Universal Buuhoodle.